qaar ka mid ah isimada gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn ayaa dhawaan ku shiray deegaan ka tirsan gobolka Sool. Shirkaasi oo ay saxaafadu siyaabo kala duwan wax uga qoreen. haddaba waxaan shirkaas iyo ajandihiisii ka wareysanay Garaad Cabdisalaan Xasan Maxamed oo ka mid ahaa isimadii halkaas ku shiray. Garaadka oo ku sugan degmada Godaalo ee gobolka Sool ayaa mar uu warqabadka TV-ga caalamiga ah ee Kalsan xidhiidh la sameeyay waxa uu uga warbixiyay ajandayaashii shirkaasi iyo qodobadii ay ka wada hadleen. salaanka bacdi waxa rabay inaan warkaan kaas iyo kulan aanu yeelanay salayto garaad Taleebaan iyo garaad Maskare iyo anigu aanu ku yeelanay la yiraahdo garaad lagu dal oo saxaafadu ay ka qortay warar badan oo kala gedsan ayaan rabay inaan kaas iyo warbixin ama saxo sida ma socoto odayaasha dhaqanka waa soo iman karaan arrimo dhaqan u baanu ka hadalay anagu waliba dadka dhulbaantaha ugu liito taladooda hadiyeeraan laga cabanaya dadkan anagu odayaasha u nahay weeye sida darteed oo nugaasha dega sida darteed baanu garanay bal inaan horta anagu isu tagno oo sidii wax loo toosin lahaa awashada faraha badan dadka soo baxaysa ama qabaa'ilka saytaha ahaato ama talaxumooyin badan oo jira ha ahaato dadku hadiyeeraale waxay leeyihiin meesha wax shartu karta ka qurantay waa idinka oo kala jeeda waan isu iman karay oo wax jahayn karay marka bayaan anagu wada hadallo isu nimaadno wafidiye dadkan iyo dalkan u galaa oo baan ugu nimi laakiin saxaafadu warar badan oo aan meesha ku jirin bay ka qortay oo ay sheegtay runtii aan aad ugu xunay qaararkooda ay jiraan marka intaas aan rabay inaan ku bayaaniyo oo ay saxaafada aan bayaaniyo waa tahay Garaad isimadiina kulanka yeeshay muddo dheer ma idin kulmin waana kala fikir duwaneedeen. Garaad Taleebaan Garaad Maxamed oo kale wuxuu ahaa isimada taawacsan maamulka Puntland ee ku sugan magaalada Garowe. maxaa kulankiina hadda ku soo beegay baa la oran karaa? wallahi horta waxaan odayaalnahay waa qabaa'ilka anaga hadda arrimaha hadda siyaasadda ma ahayn waxay ahayd arrin qabaa'il bay ahayd war dadkan odayaasha u nahay dhibaatooyin badan baa jira wax badan baa ka yaacsan بالآمنسانات إنكم ليسوا دون آمنسانات يعني ليسوا دون الله سقيني هاتشوك بلينا كوا بفرقين إنكم أهمشي ذاتك قبائل كها وغار إسدريان وغار كالبيعين وغار دباتوين كتيران شداء الرنطة الوحوقات وذكرنا بهذا مبدأ كلاين وحل كالآمنسان هي ميراء لك لكيلو runtii idina cidda meesha kale kuma xadgudbin ay soo qaadin meesha ma maayoon waan gartay maxaa isku afkarteen hadda ma wax ma nooga sheegi kartaa kulankiini wuxuu ku soo dhamaaday Garaad wallahi in la soo iman karo oo aan balabta inaanu iska imaano bal eedan dadku ay leeyihiin odayaasha dhaqanka ayaa dhibaatada ugu weyn ay tahay bayaan eedan iska reebno inay arrintu eedan annaga tahay iyo inay siyaasiyiinta tahay iyo inay ganacsatada tahay la kala ogaado anagu sunni waxna lama dhex yaalaan wax dhibaatana ma wadno laakiin dadka ama siyaasiyiinta ama ganacsatada inay isu yimaadaan iyaga oo dadka amba qaadaan oo hadiyeeraan marka aan maxaad u qaban weyda waxay leeyihiin dadkii dhaqanka hogaamiyaalka aan isu iman karaynin oo dib meel ku xiran yahay oo kala tegay marka dadka waxaan tusinay inaan kala tegin isu iman karno waxna la dhex oolin siyaasadna kama aan hadino nin wada maxaad aaminsantahay iyo xagga u socotaa iyo xaggaas aan runtii hadda waan gartay Garaad kulankaas miyuu ku ekaa mise kulamo kale aad u balanteen oo kan ka dambeeya waanu kulmi doonaa waana ballansanahay waana la soo imanaya laakiin saxaafadda waxaan u sheegayaa in dadka gooyaal loo kala tuuro oo la kala beeyo oo maaragtay in dadku waxaan soo iman karin laga dhigo oo la yiraahdo hadii laba oday meel isugu tagto in saxaafadda waliba dadka ina taageerto oo inaga ama khaatimo taageerta inay hadiyeeraale wax sii qoraan oo wax qariraan oo dadka ay waxay jiri ka sheegaan oo marka la faafiyo la yiraahdo ama Garaad hebel baa halka u socda ama sidaas isaga taariikhdaas in arrin ceeb tahay waan arkaa hal laga digtoonaado. Cabdixakiin Saciid Maxamed, Kalsan TV, Nairobi.